siday warqad luntay ay ugu horseeday inuu noqdo bilyaneer. Ku soo dhawaada daawadayaal Xogogaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa mar kale iyo muuqaal cusub. Scott Farquhar waxaa xasuustaa sidii ay noloshiisu isku beddeshay iyo wixii sababta u ahaa. Haddaba ganacsadahan aynu maanta ka sheekeynayno ee u dhashay dalka Australia wuxuu qarka u saarnaa inuu markii hore ku biiro ciidanka militariga ee dalkiisa, kadibna markii uu dhammaystay waxbarashada dugsiga sare, laakiin warqaddii ka soo baxday wasaaradda difaaca ee Australia ee lagu ogolaan lahaa inuu ku biiro ciidanka ayaa ka luntay. Markii warqadda dib loo soo helay 2 bilood kadib, isagu wuxuu horeyba u sii bilaabay jaamacad, wuuna ka tala baxay fikirkii hore. Warqaddaas luntay ayaa sabab u noqotay in isaga iyo ninka ay ganacsiga shirkadda ku yihiin ee lagu magacaabo Meycana Brooks ay agta saaraan waddo ay ugu dambeyn ku noqdeen bilyaneero. Waxay noqdeen bilyaneeradii ugu horreeyay ee Australia ee lacagtooda ka dhaliyay shirkad tiknoolajiyad. Haddii warqaddaas aysan lumi lahayn ama xilli hore la heli lahaa, waxaa laga yaabi lahaa in arrintu ay sidaas ka duwanaan lahayd, ayuu yidhi Scott, oo hadda ay da'diisu tahay 2020, 40 jir. Labadan nin iyagoo aan lacag sidaas u badan haysan ayay abuureen ganacsigooda 2002. Shirkaddooda tiknoolajiyadda hadda waxay qiimaheedu ku kacayaa lacag dhan $25 bilyan. Labadan nin mid waliba hadda wuxuu gooni u haystaa lacag dhan $7 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Scott waxa uu sheegay inuu ku soo koray xaafad dadka degan ay shaqeeyaan oo ka tirsan magaalada Sydney, sidaas awgeedna weligiis u danayn jiray barashada culuumta kombiyuutarka. Waxaan xasuustaa habeenaan aad u ooyay sababtoo ah saaxiibkay ayaan kombiyuutarka ku arkay, aniguna kombiyuutarkiisa oo kale ayaan rabay, ayuu yidhi. Waalidkiisa ayaa markii dambe ku khasbanaaday inay u soo iibiyaan kombiyuutar. Halkaas ayuu ka bilaabay barashada aqoonta ku saabsan kombiyuutarka. Wassalaamu calaykum. haddii aad fadlan ka heshay subscribe noo saar, like na saar, mahadsan.